السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada idinku talagalnay waa barnaamijkeeni habeenimo sabti ah oo axadi ay soo galayso taariikhduna ay tahay 23 bisha August sanadka 2025. haddaba barnaamijka caawa waxaynu ku soo qaadanaynaa qodobo aad u xiiso badan. waxyaabaha laga soo sheegayo ee ceebta weyn ay caawa kala kulmayso Israa'iil maxay tahay airportka Ben Gurion maxaa ka dhacaya caawa warka weyn ee adduunku uu ka hadlayo ee airportkoodii weynaa ee Tel Aviv waxa ka dhacaya maxay yihiin sheeko cajiib ah idinkaga haya arrinkaas waxa soo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doona كتائب القسام وهذا ورسو صارتي ورد دقدقان إذين هيا كوصابسن إذا ماذا إسرائيل وأي نكتك قسارين حافظ قزة ليرادو قارهان حي زيتون دنك ليرادو نوكي تجابي كوضان سيتمبرا ويررنا يوحكن واسك غرافات معلوم البالوستو تجابنا هذا وعاو وحي العي أينو أركا إذي كغاينا مظاهراتي waaweyn ayaa gilgilaya Israa'iil wasaaradda gaashaandhigga horteeda iyo meelo kala duwan sidoo kale bariyo axadana waxay soo ballansadeen mudaaharaadyo kale inay dhacaan qaylada iyo makarafoonada ayaa dhagaha looga qaylinaya madaxda Israa'iil mudaaharaadyaduna sidan ay u socdaan waatahay qodobadaas ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahineynaa inta aan ku jirno haddii warar cusub ay soo kordhaan waan idinla socodsiin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan waa habeenimo sabti ah oo axadi ay soo galayso barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa warka degdega ah ee hadda Al Jazeera ku qoran. haddaba haddaan idin tuso Al Jazeera waxay soo qortay war degdega ay leedahay Al Qassam waxayna soo gaarsiisay war ah inay bartilmaameedsadeen oo ay nagta ka saareen 2 taangi oo ay Israa'iiliyiintu lahaayeen. waxay u dhigeen miinada halista badan ee aadka u qaraxda waxayna weerarku uu ka dhacay dhinaca koonfureed xay zaytuun oo ka tirsan Gaza. waxay soo kale sheegeen waliba inay wadada u galeen oo ay nagta ka saareen oo ay celiyeen ciidamadii doonayay inay soo gurmadaan oo ay badbaadiyaan kuwii wax ku noqday taangiyada la gubay. waa sheeko culus waxaasu hadday dhacayaan warka hadduu soo dhacay waa caawa 2 taangiya la cunay nimanku waa niman aan caadi ahayn laakiin meesha ay wax ka dhacayaan ma garanaysaa waa meesha Israa'iil ay rabto inay qabsato Gaza lidada waa meesha dadka jooga inay ka rabto meesha ay aaminsan tahay haddaanay meesha gacanta ku dhigin inaanay qabsan karin Gaza. marka xaafadaas way weyn tahay xaafadaha Gaza way kala qaybsan yihiin Khan Yunis, Rafah waxaan marka xaafada Gaza la yiraahdo oo magaca marinka Gaza qaadatay waa midda ugu ballaaran ugu weyn. taasay rabaan marka milyan qof dadka badan ku nool taasay marka rabaan. marka maalin hore waatii dagaal ay soo qaadeen lagu jabiyay caawana
taangiye lasoo diray oo tijaabo ahaa nagta laga saaray. nimankan bannaankay ku alamiiteynayaan ogow barnaamijkayga galabka haddaa fiirsataa waa yaabaysaan inta fiirsata way ku baadsanyiin. barnaamijka galabtaa ku sheekeeyey bannaankay taagiyiin bannaanka Gaza. macnaha maxay samaynaysiin munaawaraad askariya leeyihin, macnaha dhoolatus military. war dhoolatuskan bannaanka lagu sameynaa maxay tahay? waaba dagaalkiyaaba socdee. dhoolatus waxaa sameeya ciidan aan dagaal galin, ciidamo aan dagaal gelin oo maaragtay isdiyaarinaya ayaa samaysta. dagaalka waaba socdaa, maxaa wax isku diyaarinaysaan? sheekada nimankaa bannaankay joogaan. nimankaana marka qaaray soo dirayaan nagtaa laga saaraa. marka waxaa leeyahay caawa labada taangi waa lagu tegay. weliba wadada inta loo galay inay imaanayaana la ogaa, kuwii soo gurmadayna nagtaa laga saaray. tafaasiil badan lama hayo oo maaragtay dhanka Al-Qassam intaasa hadda ay ka soo baxday. kullay Israa'iiliyiintuna waa soo sheegi doonaan. iyagu maantaydii hore askari looga dilay Khan Yunis oo maaragtay xidigla ahaa waxaasay ka hadlayeen. laakiin sheekadan waa cusub tahay. caawa waa caajil, waa arkaysa, waa khabar degdega, waa war degdega waay. marka wixii warara soo kordha kullay barnaamijyada dambe ayaan isku maaragtay haddii alla idmo aan maaragtay kusoo gudbin doonaa. qodobka halkaasaan kaga gudbaynaa. qodobka labaad waxaa loo soo socda sheeko yaab la ogaada. caawa wax ka dhacay aeroboortka Bangorion aa idin hayaa. waa aeroboorkooda Tel Aviv ku yaala, Bangorion aa la yidhahdaa. sheeka aan ku qosla ka dhacday waa idiin soo wadaa. marka laakiin waxaa ka hormarinayaa mudaaharaadyadan socda. mudaaharaadyo ayaa waxay ka socdaan saa'id ah meel kasta. la idinma maqlaayo awal mikrofoonka waa yaraa, ma hadda qof walba mikrofoon u soo qaatay. waraa dadkaana loo soo dayo, war soo daaya nimankiinaan Netanyahu iyo kooxdiisa tuugaatiin waa kaasaa lagu haya. marka hore qoraalada laga qoray mudaaharaadka, kadibna mudaaharaadkii oo socda ayaan idiin soo gudbin doonaa. marka ugu horeysa waxaa leeyahay kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa mudaaharaadaya kasoo horjeedka wasaaradda gaashaandhigga iyagoo dalbanaya heshiis. haddaba kumanaan Israa'iiliyiin ayaa waxay markaa ku mudaaharaadayaan kasoo horjeedka wasaaradda gaashaandhigga magaalada Tel Aviv iyagoo dalbanaya heshiis in la gaaro ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista. kaas marka waa war kale oo isla mudaaharaadiyada dee waa xoog ay leeyihiin. warka kale oo mudaaharaadiyada ku saabsan isaguna wuxuu qoraya Al-Jazeera leedahay mudaaharaadayaal ayaa waxay xireen shaarica la yiraahdo wadada ku taala dhanka waqooyi ee Israa'iil iyagoo dalbanaya iyaguna xabad joojin. haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa goordhow waxay sheegeen mudaaharaadayaashu inay gooyeen oo ay jareen wadada weyn ee la yiraahdo 90 taasoo ku taala koonfurta Kiryat Shimona waqooyiga Israa'iil. dadkaa waxay dalbanayaan xabad joojin iyo in markaa maxaabiista la isdhaafsado. waa war kale. marka Al-Jazeera waxaa leedahay mudaaharaadiyadu shimaal ilaa junuub ilaa meel kastay ka socdaan. qayladu way socotaan. nimankan qolana Gaza ku sugaysa Al-Yaasiin oo haysataa markay soo galaan sida caawa kala dhagtay ka saarayaan. markay gudihiina qaylaa lagu wadaa waa war xab dagaal ma rabno ayaa lagu hayaa. warka kale ee caawa soo kordhay dhanka mudaaharaadiyada waxaa ka mid ah Al-Jazeera waxay leedahay qoysaska dadkooda la haysto ee Israa'iiliyiinta waxay ku baaqeen oo ay Israa'iiliyiinta kale ka codsanayaan in la xoojiyo isu soo baxyada shacbiga ah. hay-adda dadkaasu ay leeyihiin ayaa ku baaqaysa in shacabka isku soo baxaan berito oo Axada iyo maalinta Talaadada iyadoo la samayn doono mudaaharaadyo waaweyn laguna dalbanayo xabad joojin iyo in maaragtay maxaabiista la isdhaafsado. kan waa yaryahay leeyahin caawa dhowr meeluu ka socdaa laakiin waa yaryahay berito iyo Talaadada iyo aan isku soo baxanay leeyahin. marka nimanka maalmaan oo dhan waa wadaan waa tii guriga Netanyahu laga celinayay shalay aadii sheegay. marka sheekada halkaasay maraysa. xaaladda gudaha way kacsantahay. aan idin tuso mudaaharaadayaashii oo kulligood mikrofoon wata oo qaylinaya.
marka xaalku halkaasuu maraya mudaaharaad hadday tahay haddii dagaalki tahay Netanyahu isaguna waxba haysta sheekada airportka Ben Gurion waa sugaynaa weli wax warar kale soo dhici doonaan isleeyahay qaybta dambaan geenaynaa laakiin war kale oo Mareykanka ka yimid ayaan idin hayaa dadka Mareykanka ayaa waxa laga aruuriyay ra'yi arurina laga aruuriyay سو أركتانا ليري فلسطين إني دولتش نص كود دتك هاف إن كبضن وحير هذين دتك دولتود هالله أقونصد وحلقة فيلاي معنا أقول يهودي مريكان كجوكتي ترامي كوحدي سي مركي تقرير كلا صوص هروي يابن وحنو صح معها لقول لابتي لان مركاي أذوا وين أيا كشقي هاوشا سالقبت marka waxa ku tusinaysaa lagu leeyahay dadka adduunka ku nool dulmigaas ma rabaan laakiin madaxda dawladaha iyo dadkan luqaafada wada waxa hawshan wada laakiin shacabka caadiga shacab wanaagsan ay u badan yihiin oo aan dhibka iyo dulmiga dadka lagu hayo aan raalka xataa waxa jirta niman yahuuda oo dulmigaas ka soo horjeeda oo mudaharaadyada London hadda waxaan ku arkay niishada mudaharaadyada yahuuda imaanaysa oo ka soo horjeeda caruurta la laynaya iyo waxa kan iyo gasa dagaalkeeda ma rabna leh oo maaragtay timahoodii dhaadheeraa iyo koofiyadahoodii wata marka dadku isku mid ma ah bini aadamka dad badan oo dulmiga diidan way jiraan marka aan idin tusoo Mareykanka waxa ka dhacay Al Jazeera waxay qoraysaa caawa waxay leedahay istidlaac ama ra'yi ururin laga sameeyay inta badan in ka badan half dadka Mareykanka ah waxay taageersan yihiin اعترافك دولة فلسطين أي لهذا هذا رأي أورنتن وحال شيء إني أرورسي وكالة دورك إلى هذا رويترز إيوه إبسوس كنتن يسديد بقول كيف ضدك مريكن كا وحيو أركان إن قرمدا مذوبي لجو أقونصدو دولة أو اعترافه فلسطين أي لهذا موجودة marka adduunku markuu halkaas maraa laakiin marka ugu dambaysa dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin dulmiga waa laga adkaan doonaa marka waa baadilka iyo dulmiga iyo waxa kan marka dambe xaqa imaanaya waa la dardaraya waxaas qadar xayisiisa kadib sheekadii airportka Ben Gurion ayaan galaynaa ma jeceshahay barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada hab casri ah online adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya quraanka hab casri ah online maadooyinka ka baran karto waxa kamid ah quraanka kariimka igada luqada carabiga iyo culumta shariicada sidoo kale way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa شركة إمارة لكشري هومز وشركة قريها عصرية كدست مقالة نيروبي دالك كينيا هادنا waxay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafada Backlands jidka 6 Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xiriir telefoonada kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni habeennimo waa habeennimo sabti oo axad soo galayso qaybaha ugu dambeeya barnaamijkeena ku jira qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa airportka Ben Gurion iyo waxa ka dhacay Al Jazeera way ugu daran waxa ciwaan uga dhigtay airportkii oo xarun military isku bedelay fokna askari isku bedelay tiri bash meesha maxaa ka socda bark mudaharaad baa ka socda bay maxaa ka socda sheekaya baa ka socda idin sheegay caaw waxa leeyahay dad badan oo ay ku jiraan wadaad xarooyadii diinta iyo kuwa badan airportka inay ka dhoofayaan dagaal bar rabaad waa la isqasbaa leeyahay bogta Al-Yaasikiya u tagay nimanka gasajoog baa loo dhawaa karaa dhalinyaradii yahuudda ayadoo dhan waa cararayaan qafaal ma maqli jirtay in la qasbo oo dagaalka la geliyo dagaalkayna ay diiday
dagaal barbilina laga noolaanaa rabnaa meeshaan kii tagaba soo waalanayo kii kala soo dhaawacmaayo midna la dilaayo maxaa ka doonaynaa taageen eeraboorkii marka waxay is cayrsanayeen ciidankii militariga iyo dadkii dhoofayay qabta markaas aljaziira waxay waan uga dhigtay madaar bangorion oo isku bedelay thukna caskariya saldhig military oo isku bedelay meeshii dadkii caadi u dhoofay xataa waa yaabayihiin militarigii iyo dhalinyaradii ay iscayrsanaysa ma bixi kartid iyo waa bixi karaa maalaha dagaal ma rabo aniga war waa baxaysaa ma baxaysid waa baxayaa waxa la xerayo waa yaabaysaa lagu leeya ceebta dhacda iyo fadeexadda meesha ka jirta ilaahay dadkaa waa ceebeeyey waa ujeedaan waa la yaabay adduunkii dhan ayaaban aayadi tusoo haddaba wararkii ugu dambeeyey telefishinka aljaziira ayaa ciwaan wuxuu uga dhigay eeraboorka bangorion oo isku bedelay xarun military ama saldhig military iyadoo halkaa lagu qabanayo dad ka tahriibaya oo askarnimada ka tahriibaya oo cararaya warbixinta way sii socotay kanaalka la yidhaahdo 12 ee israa'iil ay leedahay ayaa caawa wuxuu sheegayaa in ciidamada israa'iil ay samaynayaan olole ballaaran oo ka dhan ah dadka doonaya oo badankood wadaadadu ay yihiin diimeedka israa'iil inay safraan iyagoo ka hortaagan haddaba marka waxaa la sheegayaa waxaa la ogaaday 40,000 oo yuhuuda inay doonayaan inay u safraan wadamo kala duwan gaar ahaan Ukraine meel ka mid ah halkaasoo la sheegay in wadaadiimeed yuhuud ah sanad walba lagu ziyaarto oo lagu booqdo halkaas ayay tagi doonaan qabrigiisa adduunyadii kale meelay aadi karaan ama iska yaraad Ukraine maxaa ka jira Russia meesha iyaduna igu soo boodmiya marka waxay leeyihiin meelo waxaa jira Poland iyo meelaha u soo dhow oo maaragtay xogaa iska nabad doonaa jira Ukraine to dhanka dhexda iyo Ruushka dhanka xigtay meelahaas waay meelaha nagta la isku hay marka xagee u socotaa markii la yiraahdo kulaha wadaad habelkii aan ziyaaran jirnay yahuudiga ahaa oo ku aasnaa Ukraine u socdaa waana beena lagu leeyahay wax ka jira bale tikidho waxa uu wada go'an Ukraine laakiin nin walba markuu beesha tago kasi gudbi rabaa 40,000 inta bay ku taalaa waxa ciidanka beesha loo soo dhigay wax saalan baa marka beeshii waxaa ka dhacdaa lagu leeyahay caawa ceeb iyo fadeexad kaligood hadday ahaan lahayn meel qarsoon ay ahaan lahayd eeraboorkii dhan waaye dadkii ka dhoofayay beesha wada arkay hadday yihiin yuhuud iyo kuwa aan yuhuud ahaynba meeshii laysa cayrsanayaa socotaa lagu leeyahay caawa waa yaabay aljaziira bay ugu darar kule madaar bangorion thukna caskariyo isku bedelay meel militariyo isku bedelay واركي دورنا وعيسو كرنا أصحابي حالكو هالكاسو بريا وعصب وانديسو أرورين دورا وانديسو قد بيد دورا فكر كيني أركتدي ونأديكو ربال كان يبتا برنامج كعاوة لايك قرأي أو شير قرأي هداد عصب تاينا سبسكرايب هكي لو من يوتيوب كفيسبوك ونفرو قرأي أصحابي مالكستو جوكتان سياد مرور برنامج شديدة وهشان انت عن مركلة كل بينو نبت قريب